aan ku sii wararka walaal dhinaca dibnaasiyada dabashayna qiimaha leh maalmihii ama 24 saacadood ugu dambeeyay waxaa jiray xogo ku saabsanaa in ay jiraan dad muwaadiniina oo Soomaaliyeed oo doonaya in ay Kenya ugu maqraati kacaan in ay leedahay badda ay Soomaaliya ku qabsatay arintaas waxaa sii dheeraa iyadoo oo ay sheegtay Kenya in ay ka walaacsan tahay maxkamadda ICJ ee la wadaagtay walaac ku saabsan in dadka muwaadiniinta ee Soomaaliyeed ee doonaya inay maqraati kacaan aysan barta suumka loo yaqaan maqal iyo muuqaalka aysan ka muuqan karin maadaama bartaasi ammaankeeda dhinaca ambadqabka dhinaca xogta iyo sirta aan la isku hadlay karin haddaba inkastoo wararkaasi dad badan ay moodayeen warsuuq ugu dambeyntii warbaahinta dalka Kenya ayaa cadaysay in warkaasi uu warjira yahay Kenya ay ka walaacsantahay arintaasi sida uu kamid yahay wargeyska afka dheer ee Star ee dalka Kenya ka soo baxa ayaa waxa uu cadeeyay in ay arintaasi ay tahay mid macquul ah isla markaana dawladda dalka Kenya ay walaac ka qabto in 15 bisha Maarso oo maxkamadda ICJ hore u shaacisay in uu ku dhici doono dhageysiga dacwadda qaybna ay maqal iyo muuqaal noqon doonto tu kalena ay ka dhici doonto dhismaha oo la is hor fariisan doono ay jirto xogta ay aragtay wadaacadaasi ama uu arkay wargeyskaasi Kenya ka soo baxay Star wuxuu intaasi ku daray in ay jirto walaac xoogan oo laga qabo arintaasi iyagoo la sheegay in arintaas ay dhaawici karto waxay ku sifeeyeen fursadda Kenya ay ku heli karayso inay meersato badda ama ay ku garasho waxa warbixinta ay wargeysku qoray uu yiri waxa la ogaaday ama jira ayuu xubno doonaya in dalkooda hooyo ay ka maqraati kacaan oo ay ka soo horjeestaan kuwaas oo ku maqraati kici doona in cadaaladdu ay tahay in Kenya ay badda iska leedahay si daraadeedna dadka noocaasi sameelaha kuma kala soona kuma san banaana in isku aaminaan maqal iyo muuqaalka barnaamijka loo yaqaan Zoom si daraadeedna waxa laga yaabaa inay dib u gartaan iyagoo nafahooda iyo xogtooda u baqaya ayaa wargeyska qoray wargeyska wuxuu sheegay in dawladda dalka Kenya ay sidaas ka walaacsan tahay inkastoo uusan sheegin saraakiisha wargeyska xogta ka soo xigtay haddana wuxuu sheegay in ay jiraan qalalaase xoogan oo ka dhashay arintaasi kolkii ay Kenya ay doonaysay inay soo bandhigto xubno ka maqraati kacaya oo dawladda dalkooda iyo dalkooda hooyo ku maqraati furaya inaysan badda shaqal iyo shaqo toona ku lahayn muwaadiniinta Soomaaliyeed ee sidaas sameelaha haatan khatar ayay wajahayaan tanina waxay keeni kartaa inay Kenya weydo kiiska ama ay ku guuldareysato ama ay la imaadido waxyaalo ay ku lagu taageero cadeymaheeda ay ku doonayso ayaa leeyahay arintan ayaa waxa ay imaanaysaa iyada oo dawladda federaalka Soomaaliya ay sidoo kale ay hore u diiday inay wax wada hadal la gasho sidoo kale maalmihii ugu dambeeyay waxaa jiray dad badan oo Soomaaliyeed oo na soo weydiinayay warar ku saabsan runtii aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin dadka Soomaaliyeed oo mar walba moodo wararka dhinaca dibnaasiyada iyo wararka noocaas oo kale ah inay runtii ay dabcan ay mar walba na soo weydiiyaan salahan ku saabsan in Turkigu uu doonayo inuu ku dhexdhexaadiyo Kenya iyo Soomaaliya arinta badda warkaas horfadhi media ma caday karto isla markaana waxay aan isku daynay inaan qaar kamid ah saraakiisha dawladda federaalka Soomaaliya wax ka weydiino inkasta oo runtii aanan helin arinta dadka sida gaarka ay khusaysan sida ra'iisul wasaare ku-xigeenka oo kale haddana wali waa ku raadsagnaa laakiin se ilaa haddeerto cid taageeraysa ama warbaahinta dalka Turkiga warbixintaasi waan ka weynay markaan aad u raadinay sidoo kalena warbaahinta dalka Soomaaliya gaar ahaan kuwada la isku hadlay karo ama kuwa dawladda ha noqoto ama kuwa kale oo iyagu madax banaan ha noqotee way cadee kari waayeen in ay keenaan cid ay ka soo xigteen si rasmiga iyadoo warkaasi la sheegay in xafiiska wasiirka arrimaha dibadda dalka Turkiga laga soo xigtay markii hore oo la sheegay in uu doonayo in Soomaaliya yimaado Kenya tago arrintan uu ku dhax galo laakiin arrinta horfadhi media cadeyn uma haysan hadda waxaan rajaynayaa in dhawaan arrintaas su'aasheeda iyo jawaabteeda afka qaar kamid ah mas'uuliyiinta Soomaaliya ka maqashaan hadii ay baydmee laakiin arrintan ayaa waxay imaanaysaa iyada oo ay qarka loo saaran yahay in 2 toddobaad wax ka yar la isku soo horfariisto maxkamadda cadaaladda International Justice la yiraahdo ama maxkamadda cadaaladda oo ay Kenya ay dhawaan diyaarsatay qareenadeedii ugu badnaa inkastoo dalka Soomaaliya uu ka jiray maalmihii ugu dambeeyay arrimo mashquul xoogan oo dhinaca doorashada haddana waxay wararku sheegayaan ama marka la eego warbixinaha ay qorayaan warbaahinta Kenya ka muuqda kalsooni darro aad u weyn oo ah inaysan kiiska ku guuleysan doonin maadaama aysan kiiska ku xaq lahayn